السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكن آذن محمد كسر دوات جل كنا بك صديق أكاديمي أو كوا عاون إن هنجال سفود كبرتيد قرآن كريم كنا نتكلم آخر سيد إن شاء الله مقال كنا ما أنتم حقوق هذا دونا درس جلواتي سدحات توبرك معلم كهنجادة على منهج التطبيق والتمكين في تعليم قواعد القراءة والكتابة كفائدست كسر مركل المقال إن شاء الله مقال كنا ما أنتم حقوق هذا دونا مدلين يكون هذا لنا يلبدي سقيبات مدلين واو مدلين يا يقابك أما سيد علمها الله برا إن هرتا مركو هراء إن مدلين وحواي واو إيو يا أو كورديك كهراء لبعض كورديك يا كهراء أيجن ويربيهن لبعض ويربيهن لكن كورديك يا كهراء أما محل حرف كورديك وتا يا كهراء لكن أيجن مر والبو ويربيهن هنا أملاني مد كدرت أنصوم مرة أو أها مدو واو مدو يا كواس ما قعد وحلا مدو طبيعي يلاها أما كوان لبعض وحلها مدو لين يلاها فرقي ودحي وحواي مدو طبيعي جا واوغا يعني محل waxa ka horeey godaal ayaa ka horeeyo asiga uu reeban yahay bar walbo waan la jiidaa yaadana maxalla hoosriga ayaa ka horeeyo een ayadan way reebatay waa la jiidaa madu tabiici ayaa laha daraad ayaan soo marnay laakiin madulinka labadoodaba maxalla waaw iyo yaadaba yani waxa ka horeey xaraf oo kordhig wad ayaa ka horeey ayagan way reeban yihiin marka waa la qabanaya lama jiidaa waa la qabanaya marka rabtid inaad ilmaha aad fahansiisid madulinka waxa sameynaysa qaacidada madulinka ayaad keenaysaa haduu yahay maxalla madulin waaw ama madulin ya qaacidada ayaad keenaysaa kadib waxa sameynaysaa ama buuga ugu qor ama sabuurada ugu qor sidaan oo kale kadib waxa sameynaysaa marka maxalla waad ugu celinaysaa dhowr mar ay ugu celinaysaa laba mar saddex mar afar mar kadib aad waxa sameynaysaa marka cunug waxaad fahansiinaysaa madulinka iyo qaabka loo akhriyo sida loo akhriyo ayaad maxalla cunug fahansiinaysaa sida hadda oo kale waxa iri sidaan oo kale waxaad leedahay cunuga waxa madulin waxa waaye waa waaw iyo ya oo reeban oo kordhig oo ka horeeyo ay mar walba reeban yihiin laakiin xaraf kordhig saaran ayaa ka horeeyo marka waxa sameynaysaa marka laba cashar ayaa ka kala dhigaysaa mar waxaad baraysaa madulin waaw ayaad baraysaa marna waxaad baraysaa madulin ya ayaad baraysaa u fiirsa meeshan waxa leenahay hamza fatha waaw sukun aw ba fatha waaw sukun baw ta fatha waaw sukun taw sa fatha waaw sukun ثو جيم فتحة واو سكون جو ح فتحة واو سكون حو ق فتحة واو سكون قو دال فتحة واو سكون خو ذال فتحة واو سكون ذو را فتحة واو سكون را فتحة واو سكون رو إلا إدكسو جارتيد يا فتحة واو سكون يو كبعد يا مركع عنق مركع يعني لو مر سدح مر أفر مر يدقوا على أساس وفهموا سيد الله قاعدين يمدوا ليك مركز كبعد مركع واحد حوجة ساريسا نواقص يد حوجة ساريسا وحلا هاي أو بو تو ثو جو حو قو دو ذو رو زو انت سيدكو علنيسا دواقع يدكو علنيسا الى عنقه وكفهمها بس ماشي وانا قاعدين يا سي فتحه واو سكون سو ففتحه ف سوف قفتحه واو سكون خو ففتحه ف خوف مي فتحه واو سكون مو تفتحه موت فهمت marka qaabkaas ayaad maxal aad ku wadaysaa kabacdi marka waxaad u gudbisaa madulin ya qaabka aad ku soo martay yani madulin waawga qaabka aad u soo bartay ayaad ku baraysaa madulinka yaana saas amal ayaad ku baraysaa u fiirsa meesha waan gaadinaya hamza fatha ya sukun ama waxaad dhigi kartaa alif hamza fatha ya sukun ay ba fatha ya sukun bay ta fatha ya sukun tay tha fatha ya sukun thay ji fatha ya sukun jay ha fatha ya sukun hay kha fatha ya sukun khay ila aad ka soo gaartid ya fatha ya sukun yay marka u fiirso tusaalihiisa sayfa khayla bayta u fiirso marka waan hingaadina u fiirso sin fatha ya sukun say fa fatha fa sayfa qa fatha ya sukun khay lam fatha la khayla ba fatha ya sukun bay ta fathata bayta marka sidaas ayaan isleeyahay in lagu fahansiin karo ilmaha maxallahay madulinka labadiisa qaybood madulin waaw iyo madulin إن شاء الله مقالك ما تتكفى فائدتي فضلا أسي قد بولالكاga سي أسيغن uga فائديستو إن شاء الله waxaa inoo balan 10 ka xiga جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته